kulan wanaagsan daawade halkan waa Ilawareed News waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii u dambeeyay dagaalada ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab meelaha la kala marayo iyo goobaha laga wareego ururka hadii aad ku cusub tahay halkan subscribe saaro like inoo taabo hadii aad hor u joogto waad ku maasan tahay muuqaaladan soo gudbino like inoo taabo muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa weerar ku bilowday qaraxyo ka dhacay gobolka Hiiraan iyo waliba wararkii u dambeeyay ee weerarkaasi kooxda Al-Shabaab ayaa saaki waa berigii hore waxay weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Buurdaar ee galbeedka magaalada Beledweyne waxaa lagu soo waramayaa in weerarka kadib uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaas oo u dhaxeeya ciidamada commandoska Gorgor ee ku sugan deegaanka Buurdaar iyo sidoo kale xubnihii shabaabka ahaa ee weerarka soo qaaday siday warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka ah waxa uu socday dagaalkani in ka badan 2 saacadood waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo hantiyadeed shacabka deegaanka soo gaaray dhinaca kale afyeenka wasaaradda difaaca Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay in ciidanku uu fashiliyay weerarkaasi kadib markii uu helay xog ku saabsan in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku soo yihiin saldhigaasi waxa uu sheegay afyeenka in ciidamadu ay dileen 12 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab kadib markii ciidamadu ka kortageen weerarkooda sidoo uu sheegay sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada xooga dalka Soomaaliya ay ka dhaawacmeen 3 askari oo kaliya isla markaana ay ku raad joogaan xubnihii kale ee qaybta ka ahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Buurdaar ee gobolka Hiiraan weerarka saaka lagu ekeeyay saldhigga ciidamada Gorgor ee deegaanka Buurdaar ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmihii la soo dhaafay uu gaabis ku yimid howlgalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ka socday deegaanada gobolka Hiiraan oo ahayd halkii ugu horeysay uu ka bilowday kacdoonka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ururka Al-Shabaab ayaa inta badan meelaha ay weerarayaan waxay ku bilaabaan weerar qaraxyo kaasi markuu dhaco kadib gudaha ay u galaan ama ay u dhawaadaan dad ku hubeysan qoryo oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay waxay ahaayeen kuwa feejignaan dheeri ah muujinaya ka gadaal markii ay fashiliyeen weerarad badan oo sidaan oo kale ah oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay doonayeen inay ku soo qaadaan saldhigyo ku yaala gobolka Hiiraan waxaa ku sugan ciidamo tiro badan kuwaas oo loo geeyay halkaasi inay la dagaalamaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dhibaato baan ku haya dadka halkaasi ku dhaqan gobolka Hiiraan waa xudunta dagaalada ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan waxaana Al-Shabaab halkaasi lagu gaarsiiyay jab xoogan iyagoo looga dilay xubno sarsar oo ka tirsan ururka Al-Shabaab maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay waxa gobolka Hiiraan ku haystay xaalad adag walow maalmihii u dambeeyay aanay jirin howlgallo halkaasi ka dhacay waxaana dagaalkii maanta Buurdaar ka dhacay uu qayb ka yahay dagaaladii dhawaan lagu hayay maleeshiyaadka Al-Shabaab ururka Al-Shabaab iyaga ayaa qorshahaasi maleegayay oo ay ku doonayeen in saldhig ay ku weeraraan isla markaana dhibaato ku gaarsiiyaan sida caadada ururka Al-Shabaab waxay gaadaan xilliyada waabariga ah oo askarta badankooda ay hurdaan iyagoo weerar qaraxyo ku bilowdo ku qaada saldhigga isla markaana gudaha u gala weerarka ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ay ku lahaayeen ceel cadda ayaa wuxuu ahaa midkii ugu weynaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ee guula ka gaareen ceel cadde saldhiggii military ugu weynaa ay ku lahaayeen ciidamada Amnisom ay gudaha u galeen iyagoo albaabka hore ku dhuftay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaan halkaasi guulo waaweyn ka gaaray hase yeeshee ciidamada dawladda Soomaaliya oo feejigan ayaa maanta fashiliyay weerarkii ay ku doonayeen in sidii kicilad oo kale ay ka dhigaan oo ay ku galaan saldhigaasi ciidan ay leeyihiin ciidamada commandoska ee Gorgor ciidamada commandoska Gorgor oo laga qaaday magaalada Muqdisho ayaa halkaasi la geeyay si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaasi loogu talagalay in laga saaro deegaanada gobolka Hiiraan waa xudunta dagaalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka soconaya gobolada dalka waxaana ay dadka reer Hiiraan ay garwaaqsadeen in maleeshiyaadka Al-Shabaab joogitaankooda deegaanka uu dhibaato mooyaan aan wax faa'iido ugu jirin waxaana sheegeen inta iyaga oo fadhiya qasaare la gaarsiin lahaa ay ka doorbidayaan in qasaare la gaarsiiyo iyaga oo dagaalamaya dadka deegaanka ayaa 2 qaybood u kala baxay kuwa qoryaha qaatay oo ka barbar dagaalamaya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawladda ku caawinaya inay soo sheegaan goobaha isku urursanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay doonayaan inay weerar ka soo qaadaan weerarkii maanta qaraxyada ku bilowday ee ay fashiliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya waxaa suurageliyay dadka deegaanka oo soo sheegay xogtooda
dowladda oo ka warhaysay ayaana weerarkoodii ka hor bilowday weerar kale oo ay ku qaaday inta aanay sameyn weerarkooda. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay guulo waaweyn ka gaarayaan dagaaladan ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan iyo sidoo kale guud ahaan gobolada dalka. Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe ayaa iyaguna waxaa ka socda diyaar garow ay ku jiraan ciidamada dowladda Soomaaliya oo doonaya inay gabi ahaanba meesha ka saaraan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dhibaato ba'an ku haya dadka iyo waliba dowladda Soomaaliya. ururka Al-Shabaab ayaa ku andacooda inay la dagaalamayaan ciidamada AMISOM oo sheegay inay yihiin ciidamada AMISOM ay ku sheegeen inay yihiin kuwa ku soo duulay dalka Soomaaliya oo aanay jirin wax nabad ilaalin ah oo ay sameynayaan. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa maalmahan waxa yihiin kuwa naflacaari ah, mana jirto awood ay uga hortagi karaan dagaalada ka dhanka ah ee markaas ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka digtay weeraro ku soo wajahan shacabka Soomaaliyeed una jeedisay 5 qodob oo muhiim ah inay sameeyaan dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay waxay ugu digtay weeraro qorsheysan oo Al-Shabaab oo ay la beegsanayaan goobaha shacabka, waxay u soo jeedisay 5 qodob inay sameeyaan. ciidanka qaranka iyo shacabka oo isgarabsanaya ayaa si xowl ah guul uga gaaray dagaalada lagula jiro maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. toddobaadkani waxaa ciidanka qaranka iyo shacabka ay guul darooyin waaweyn ay ku haweeyeen cadowga deegaanadii lagu dagaalamay ee Galgaduud iyo sidoo kale Hirshabeelle, waxaana la dilay in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya waxay beegaadinaysaa shacabkeeda oo markii ay garwaaqsadeen hagardaamada qawaariita si buuxda u garab istaagay ciidamada qaranka kuna biiray dagaalkani lagu ciribtirayo qawaariita oo ku jira xaalad naflacaari ah. waxa ay weli faraha kula jiraan fal dambiyeed oo ay ka mid yihiin dilka dadka shacabka ah, burburinta kaabayaasha dhaqaalaha sida ceelasha, beeraha, buundooyinka, wadooyinka wixii la halmaala. dowladda Soomaaliya iyo ilaamaha amniga qaranka oo gudanaya waajibaadkooda sugidda amniga iyo difaaca shacabka ayaa waxa ay ka go'an tahay inay ciqaab ku marsiyaan cadowga qawaariijta ah. dhanka kale dowladdu waxa ay faraysaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan feejignaan dheeri ah si looga hortago dhagarta cadowga. xogaha sirdoonka ee la socda dhaqdhaqaaqa qawaariijta ayaa la kordhiyay si loo garto ama loo gaaro tallaabo kasta oo ay ku doonayaan inay shacabka ay ku waxyeelayaan. tallaabooyinka la doonayo inay shacabka ku qaadaan iyaga oo si dhow ula shaqeynaya laamaha amniga si looga hortago dhagarta iyo faldambiyada ay sameynayaan qawaariijta waxaana ka mid ah: 1. in shacabku ay muujiyaan feejignaan guud gaar ahaan inta uu socdo howlgalladani beegsiga ah ee qawaariijta. 2. si gaar ah dowladdu waxa ay milkiilayaasha hoteelada, maqaayadaha iyo sidoo kale goobaha kale ee ganacsiga ay u soo jeedinaysaa inay muujiyaan taxadir dheeri ah. 3. muwaadiniinta waxaa loo soo jeedinayaa inay si taxadir leh xaaladooda ula socdaan, isla markaana ay yareeyaan tegista laga maarmi karo ee goobaha qawaariijta ay ugu imaan karaan. 4. waxaa la xusuusinayaa milkiilayaasha guryaha, hoteelada, garaashada iyo sidoo kale goobaha kale ee ganacsiga inay il gaar ah ay ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ka socda goobahooda. ciddii aragtaa ficillo shaki leh waxaa laga codsanayaa inay degdeg u soo wargeliyaan laamaha amniga. 5. ciidamada amniga waxaa ka go'an inay sii wadaan howlgallada qorsheysan oo lagu burburinayo qawaariijta Al-Shabaab. sidaas daraadeedna waxaan ka codsanaynaa shacabka warkan ay dowladda Soomaaliya soo saartay waxaana kaga gol leedahay in la soo afjaro weeraradii dhagarta ay maleegayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaasoo laga yaabo inay ka geystaan goobahan kor ku soo xusnay. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay ku jiraan xaaladii ugu darneed maadaama dagaal culus uu haysto isla markaana dhinaca dhaqaalaha laga cuuryaamiyay. ururka Al-Shabaab ayaa wax kasta u sameyn kara hadiiba ay gaarayaan qof ka tirsan dowladda Soomaaliya ama mas'uul heer sare ka ah dowladda Soomaaliya. 2 qofood oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayay 10 qofood u baabi'in karaan maleeshiyaadka Al-Shabaab, waana si looga bartay waxyaabo hore u dhacay. waxaana ka mid ah tusaale ahaan qaraxii ka dhacay isgoyska Zoobe 14 Oktoobar sanadii 2017. qarax la doonayay in lala eegto airportka magaalada Muqdisho ayaa ku qarxay isgoyska Eken 14 Oktoobar ee Zoobe, kaasoo ay ku leedeen dad kor u dhaafay ilaa 500 wax ka badan. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxa ay sameeyaan dadaal kasto ay ku doonayaan inay ku beegsadaan goobaha ay ku badan yihiin dadka shacabka ah, kuwaasoo ay u arkaan inay ka heli karaan 2 ama 3 qof oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya
ama saraakiil sare ka ah dowladda Soomaaliya. digniintan ay soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadaysaa ka gadaal dagaal ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ah iyo diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee wadamada saaxiibada dhul ah Soomaaliya iyo Turkiga iyo Mareykanku ay ku wadaan deegaanada dalka kuwaas oo lagu xoreynayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa hadda ah kuwa naf la caari ah mana awoodaan inay iska caabiyaan dagaalada kaga imaanaya ciidamada dowladda Soomaaliya. deegaano fara badan oo kamid ah Hiiraan, Galgaduud iyo sidoo kale Gurceel ayaa lagala wareegay maleeshiyaadka Al-Shabaab. qaar deegaanadaasi kamid ah dagaal ay kula wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya halka kuwa kalena si iskooda ay isaga baxeen ururka maadaama ay garwaaqsadeen inaan iska caabi karin haddii ay dagaal ku soo qaadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. dagaaladan ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa garwaaqsaday dadka shacabka ah iyagoo la shaqeynaya ciidamada dowladda Soomaaliya isla markaana u soo sheegaya goobaha ay isku urursanayaan. waxaa gacan lixaad leh ka geysanaya dagaaladan ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee jababka xoogan lagu gaarsiiyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo soo sheegaya goobaha fariisimo ah maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo halka ay doonayaan inay weerar ka soo qaadaan. shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah Muqdisho waxaa looga digayaa degista meelaha qaar ay ka maarmi karaan iyada oo xilliyada habeenkii laga yaabo maleeshiyaadka Al-Shabaab inay weerar ku qaadaan goobaha cawisyada ah ee dadka isugu yimaadaan. xildhibaan Jacfar oo Sheejiraad ku qabtay warbixin oo fariin u diray beeshiisa. xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar ayaa galabta warbaahinta kula hadlay deegaanka warbixin ee dhaca gobolka Galgaduud halkaas oo dhawaan laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab oo muddooyinkii u dambeeyay halkaasi maamulayay ka gadaal dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab loogana itaaloonada dagaalkaas isla markaana ay ka baxeen deegaanka. Jacfar ayaa dadka deegaanka u sheegay inay sii wadi doonaan dagaalkani ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab isagoo sheegay in dhulka ay degto beeshiisa Mursade ee Al-Shabaab wada haystaan inta ugu badan marka laga reebo deegaankan warbixin oo dhawaan laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab. deegaanada Galgaduud qaasatan deegaanada ay degaan beesha Mursade ayaa inta ugu badan waxaa haysata maleeshiyaadka Al-Shabaab iyagoo ka ariminayay 15 sano ugu dambeysay. hase yeeshee dagaaladani ka dhanka ah ee maalmahan bilowda ayaa gacantooda laga farmaroojiyay deegaanka warbixin oo muhiim u ahayd maleeshiyaadka Al-Shabaab. deegaano kale ayaa dhiman oo beesha ay degto kuwaas oo weli gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana ay ka ariminayaan. xildhibaan Jacfar gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle ayaa maanta safar dhulka ay waxay ku tageen deegaanka warbixin ee gobolka Galgaduud halkaas oo maalmo ka hor laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa deegaano fara badan oo kamid ah gobolka Hiiraan laga saaray waxaana deegaankani wuxuu qayb ka yahay deegaanada dalka ee laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana ka tirsan yahay gobolka Galgaduud. halkani xoolo iyo xil uma aanan soo doonan ee waxaan rabnaa inaan cadow idinka xoreyno nimankan dhulka ay haystaan wax roob ah kama da'o markaan idinka xoreyno ayuu rab alla idin siin doonaa ayuu yiri xildhibaan Jacfar. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Afrax mas'uuliyiin sidoo kale saraakiil kale oo reer Hiiraan ah ayaa safarkan waxay ku helinayeen xildhibaan Jacfar halkaas ay dhamaan ka wada hadleen iyagoo sheegay in muhiim tahay in hal meel lagu soo wada jeesto maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dhibaatooyin baan ku haya shacabka ku nool deegaanada ay maamulaan. ururka Al-Shabaab maalmihii u dambeeyay waxaa haysta dagaalo ka dhan ah oo markaasi khasaare kala duwan ay ku soo gaartay waxaana isaga baxayaan deegaano qaar halka kuwa kalena si awood ah looga saarayo. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dagaalkani waxaa ku garbinaya oo garab ku siinaya dadka deegaanka iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wadamada Turkiga iyo waliba sidoo kale Mareykanka. xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in reer Hiiraan iyo sidoo kale reer Gurceel ay diyaar u yihiin in beesha Mursade ay dhulkeeda kala xoreeyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. beesha Mursadana ay diyaar u tahay dhankeeda iyada inay xoreyso deegaanada kale ee qabiilada kale iyadoo garab siinaysa qabiil kasta oo doonaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay iska saaraan oo ay la dagaalamaan. deegaanada dalka ayaa waxaa ka socda dadaaladii ugu badnaa ee lagu doonayo in lagu xoreeyo maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana isbiirsaday qabaa'ilada dalka iyagoo sheegay inay muhiim tahay in maleeshiyaadka Al-Shabaab meel lagu soo wada jeesto. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab la taagan yahay xilligii la iska xoreyn lahaa isla markaana dadku ay muhiim tahay inay gartaan in ururka Al-Shabaab uu dhibaato ku yahay shacabka aanay ahayn oo kaliya dowladda markaasi ka jirta Soomaaliya. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxa ay ku andacoodaan in dagaalada ay ka wadaan dalka ay sabab u tahay ciidamo shisheeye oo sheegeen inay ku soo duuleen Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ay ku tilmaameen inay tahay dowlad ridda ah oo aan ku taagnayn wax diina.
culimada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay khasaaro ku wadaan dadka shacabka ah isla markaana ay muhiim tahay in meel la iska saaro. dagaaladani ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa xuduntoodu waxa ay tahay gobolka Hiiraan, waxaana deegaano fara badan oo gobolka ka mid ah hadda laga saar maleeshiyaadka Al-Shabaab. kuwa dagaal ayaa looga saaray halka kuwa kalena iyaga iskooda isaga baxeen inta aanay gaarin ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsanaya dadka deegaanka iyo waliba sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wadamada Turkiga iyo waliba Mareykanka. ururka Al-Shabaab ayaa hadda waxay u muuqdaan mid xaaladda ay ku xun tahay, iyadoo maleeshiyaadku ay deegaanada qaar isaga baxayaan iyagoo aan wax dagaal gelin. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab deegaanada laga qabsaday ee uu booqday inay ka jiraan dhibaato bini'aadamnimada ugu darneed. waxa uu sheegay in meesha aanay ka jirin adeegyadii aasaasiga ahaa sida isbitaalada, iskuulada iyo waliba sidoo kale goobaha caafimaadka. waxa uu sheegay in dadka ay u baahan yihiin in la garab qabto, ka maamul ahaana uu isaga garab istaagi doono dadka deegaanada laga xoreeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa hadda waxay u muuqdaan kuwa awoodooda ay sii daciifayso maadaama aanay jirin ila dhaqaale. dowladda Soomaaliya ayaana waxay sheegtay inay kala dagaalamayso dhinaca dhaqaalaha maleeshiyaadka Al-Shabaab, maadaama haddii dhaqaalaha laga curyaamiyo ururka aan waxba qaban karin isla markaana aan soo iibsan karin hub ay kula dagaalamaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsanaya dadka deegaanka ah. dagaaladani ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka bilowday gobolada qaar ee dalka Hiiraan ayaa ugu horeysay, waxaana taas ay saashay in gobolada kale ee dalka ay gartaan in ururka Al-Shabaab meel la iska saari karo. waxaa deegan ku jira oo markaasi diyaar garowgii ugu ballaarnaa galaya deegaanada qaar sida maamulka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo laga doonayo in maleeshiyaadka Al-Shabaab iska xoreeyaan. maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu hogaamiyay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen deegaano qaar oo maamulkaasi ah ayay go'doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana ka mid ah degmada Xudur oo aan dhulka lagu gali karin ilaa inaad diyaarad qaadato mooyaane. Cabdicasiis Laftagareen ayaa waxaa laga sugayaa ciidamada diyaar garowga ku jira inuu amar siiyo si ay dagaal uga qaadaan deegaanada ay ku sugeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa waxaa lagu xantaa mas'uuliyiintooda inay xiljecel dartiis aanay u dooneyn in la dardargeliyo dagaalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada dalka.